dadka milyaneerada ay taajiriinta ah markay lacagahooda ay kala qaybinayaan sidan ay u kala qaybiyaan. Assalaamu calaykum, kusoo dhawo channelka Huda Taajir. haddii aad nagu cusub tahay fadlan soo dhawo subscribe garee, haddii aad nagu cusbeen asxaabta soo dhawo. maanta barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay budgeting. sabab marka budgeting su'aalo badan ayaa idinka timaaday aad i weydiineysaan Huda ka soo hadal investment, Huda ka soo hadal budgeting. su'aalaha marka Instagram qaar tiro badan la iga soo diray, qaar tiro badan comment-yaasha iga soo qorteen. marka yes waan soo wada videoyaal investment aan ka hadlayo. marka investmentiga laakiin ka hadalkiisa inta aanan gaarin qodobka ka horeeya ayaa waxay tahay inaan budget gareeno lacagtina soo galaysay. marka sidee ugu wanaagsan aan marka aan taa ku budget gareyn karnaa si hadhooti lacagaha investmentiga aan ku sameynayno si ay waadax noogu ahaadaan. yes marka method yariisa jirto oo fudud aan idin tusi doono anigna saddexaanteeda aan u isticmaalo dhaqaalahayga. okay marka methodkaas waxa waaye marka methodkaas inta aanan u gudbin koogu horeeto waa inaad ka warqabtid qarashka kaa baxo iyo dhaqaalaha inta ku soo gasho bishi. qarashka kaa baxo kaleeto waxaan ka wada yacni wax kastoo yariis ee kaa baxo hadda gadaal u celi accountigaaga fiiri meeqa qarash ayaa kaa baxdo. yacni qarashka kaa baxda ma qarash waa si kala qaybinaysa ma qarash oo ahaa mid oo hal mar camal oo kaleeto maalin aad banaanka ka soo cuntaysa mase yacni qarash joogto ah waa sida korontada guriga, sida ijaarka guriga, sida baabuurkaaga shidaalkiisa, sida haddii aad gym aadid waxyaabadaas oo kaleeto. marka waxaad sameynaysaa waxaa jira appyaal aan la qaybsanayo. waxaa laga yaabaa waddan kasta in appkaas laga helin laakiin appyaal oo la mid ah way jiraan oo budgetka loogu talagalo kaleeto. xitaa waxaa jira kuwa oo lacag laga dhiibo. marka haddii aad appkaas aadan isticmaalin hoos idinkugu soo qori doona waxaad isticmaali kartaa caadi spreadsheet caadi isticmaali kartaa excelka aad ka heli kartid oo computer kasta uu haysto. marka waxaad document gareynaysaa waxaa waaye horta baakii lacag ahaan meeqa ayaa kusoo gasho. aan dhahno kaleeto waa iska soo fududaysanayna $1,000 bish kusoo gasho oo biilkaaga mishaar meela qaata shaqayriis ardayaaba tahay bishaqayraa haysataa mishaarkaaga $1,000 waaye markaad part time soo shaqeysa iska dhahnabo $1,000 markii kusoo gasho meeqa ayaa kaaga baxdo si qarash daruuri ahaad. daruuriga marka waxaa waaye kii cuntada ahay ijaarkaagii shidaalihii ama kaarka baska ha ahaado waxyaabadaas kaleeto. kasukoo maxaa kaleeto kaa baxo oo yaryarow aadan ka fakaraynin sida haddaa Netflix wax ka bixisid, haddaa YouTube lacag ku bixisid, haddii aad meelo kaleeto aad wax ku bixisid oo kaleeto. so marka waxaad is agdhigaysaa lacag kusoo gasho iyo inta kaa baxdo. kadib marka taas aad fahantid aad og tahay wax kusoo galo iyo wax kaa baxo ayaad waxaad qabsanaysaa method waaye idin sharxaya. maanta shaqadeeda xafiiskaygaan joogaa. marka xafiiskayga anoo joogaa isku daya aan waxaan idiin soo gudbiyo. marka aan dhahno 6 bakeeriya meeshaan yaasho. 6dan bakeeriga ugu horeeyo marka 6dan bakeeri waxay ku saabsan tahay lama ujeedina umaleena 6dan bakeeri waxay ku saabsan tahay dhaqaalahaaga. marka bakeeriga koowaad waa $1,000 ya 55% oo $1,000 kamid ah waa inay ku baxdaa nolosha daruuriga ah. sidii nolosha daruurigan waxaan ka wadaa ijaarka cuntada cunaysay, korontadii waxa aadan ka maarmin waa inay ku baxdaa 55. okay 55 markii kaa ku baxday haddii 55 ka badan ee qaadanayso noloshaada daruuriga ah xisaabkaaga waxaa ka qaldan ama waa inaad kordhisaa dhaqaalaha kusoo galaya shaqo kale tiraadso wax kale tiraadso waa haddii 55 ee ka badanayso markaas waa budgetkaaga aad buu tight u yahay. okay laakiin waa in markaas aad goolkaaga u noqdaa inaa 55 aysan ka badanin waxyaabahaaga daruuriga ah. waxaa xigto 10%. 10% waxaa waaye meel aad dhiganaysaa laakiin waa lacag oo haddii aad usoo baahatid ciyow aad heli kartid
sida haddii baawurka kaa jabo haddii gurigaaga biyo kusoo bataaco kaleeto aadna renovation yaris aad rabto inaad samaysid ee tahay yacni waxaa waaye waa backup plan ama haddii shaqadii sikadiis ay kaaga dhamaato oo aad u baahan tahay intaa shaqo kale ka helaysid wax aad kusii meel gaartid ama shaqadii aad ku anfici weyso kaleeto aad ku daashay inay ku ahaato dadka qaarkood kale Sweden dadka degan waxay dhahaan fuck of money yani markay shaqada ay nacaan oo kaleeto booska ay u dulqaadi waayeen u dhahaan fuck off waa ka tagay meeshan camal so kana marka waxa way 10% ma aha necessary walakin haddii lacala u baahno waa ka isticmaali lahayn okay waxa kadib ku soo hartay 10% kaleeto oo aan sanduuqan gelinayno sanduuqan marka waa kii nolosha yani financial freedom nasi lahaay horumarkii taajirnimada meesha waa yoolka dheer aan leenahay kaleeto waxaa rabaa kaleeto 10 sano hadda wixii ka dambeeyo inaa shaqo ka fadhiisto oo lacagtan camal ay ugu filnaato aan dhahayna marka kan waxaa marka kan investmentyada aan ku sameynayno aan gashanayno Tesla iyo stock marketka iyo yani waa lacag aan ka kaaftoono aan u baahnayno daruuri noo ahayn oo aan iska dhiganayno meel si hadhooti mustaqbalka dambe ee wax noogu tarto kan daruuri ah intuu ku jiraa midkaan oo lacag hadee wax dhacaan intii ku jiraan kan marka waxaa kii mustaqbalka waa marka midka stock marketka share marketka la gelinayo iyo shirkadaha aad share kula sameynaysid okay taas marka waxaa noogu xigto 10% oo education la dhahay educationka marka waxay ahaan kartaa ama ahaa mid jaamacad ku ahaato ama ku ahaato horumarinta nafsada sida hadda aniga kaleeto alxamdulillah jaamacad waan ka baxay laakiin waxbarasho igama dhamaato jaarkan marka waxa way 10% markasto sidee nolosha ku horumariya inaan gato buugaag oo nolosha si horumarinayso ina koorsooyin nolosha si horumarinay aan gato inaan markina maanta yani business minded ahaado sidee horumar ku sii gaari kara adduunku isbedelaya macluumaad cusub aan rabo inaan sii ogaado kaleeto haada dhanka investment dhanka ahaato yani horumarinta nafsad ahaantayga iyadana jaar waxay waa 10% okay waa muhiim inay haysato haddii kaleeto haddii waxbarashadaada hal mar la intaa wax barata aad tiraahdo kaasa weliga ugu filnaanaysa dee update waa inaad ku samaysid waxbarashadaada xitaa samaha marka waa muhiim ha iska masuugin midka aad nafsadaada gelinayso waa investmentiga nooca ugu qaalisan ugu fiican yes okay marka waxaa noo soo hartay 4 jaar hadda haysanaa waxaan idin karba 4 jaar marka dhahay waa sanduuq okay 4 sanduuq hadda haysanaa 2 sanduuq noo dhiman sanduuqa xiga marka waxaa la dhahaa play lacagta meeshan inta igu jirto waxaa waay ana iska abaalmarinteedii ina 10% abish waxaan oo askaga sameeysan karo kaleeto gabdhaha saaxiibaday ku raaco hadaa meelaha wax dhar oo extra aska gadgadanayo kaleeto hadii oo isku abaalmarinayo telefoonka iPhone kaleeto in isku soo qaato kaleeto waxay ahaataba yani kan waxaa waay lacagtan waxaa rabo aan ku sameyn karaa anigoona dareemeynin ooy lacagtii aan dhiganayo future-kii aan iska isticmaala ama tii education-ka iska isticmaala ama tii necessity-ga iska isticmaala ma tan waxaa waay halkan waxtii Allah iiga dhigo marka isticmaalayo waxaa waay waa xura u ahay wax harba ku sameyn karaa okay so marka tan haddii xataa dadka qaarkood waxaa jiro oo iska masuugo sida aniga dadka waxaa ahay lacaga aanan qasaarinin wax ina qasaarin ma jecli marka tan xitaa badankeeda stock marketka iga aadaa laakiin haddana waan isceliyaa dhowr jeer waxaan dhahaa jooji marka hadda hadii kale nafsada way daaleysaa nafsada dhiirgelin u baahan tahay bal wax ku isticmaal markaas haddana waxaan dhahaa maxaan heesan karaa waqti dheer enjoyment ku sameyn karaa so marka xoogoo dadka waxaa ahay kan oo ku dhiban laakiin badana experience aad u jecelahay so vacation oo kaleeto aada u isticmaalaa markaas laakiin dadka miimaantoon product iyo waxaas oo ka dawr wareegto alxamdulillah jaarka u dambeeyay soo haray jaarkan marka aad u muhiim u yahay hadii aad isticmaashid ilaahu ku soo celinaa waa ajir 5% gan waxa waaye waa sadaqa diibsanaysid ama qofa walaala kula tacaalaysa ama waalid ahaado ama walaal ahaado ama ha ahaado yani qof ahaato 5% adin iska liid waa diibaysaa gift bal laha so marka tan marka waxa farxad badan aad ka helaysaa marka qof wax u baahan amal kale aad ku musaacidid marka
marka budgetkeena aan u kala ognahay $1,000 oo na soo galo exactly meesha ay kala baxayso yani adigana sidoo kale aad ogtahay qarashka oo noloshaada qarashka inta uu la eg yahay haddii aadan ogeyn waa muhiim inaad taa aad kasoo shaqaysid aad ogtahay lacagahaaga meesha ay ku baxayaan cunto inta aad ku baxdo haddii cuntadaada aad qaali u tahay inaad soo xakamayso soo yiri sida dadka maqaayadaha maanta saaran oo kale hadaatoo kaleeto inaad ka tanaasulshid aad soo adeegatid aad cunto karsatid oo kaleeto haddii aad tahay dadka maanta oo dhan suuqa taagan oo dhar gato kaleeto sidoo kaleeto inaad ka tanaasulshid oo dhar yaroo qurux badan basic intaa gadatid haddana waxyaabo qamaaradoo kaleeto ama jaakadahoo kaleeto un aabadsatid marka يعني ماشي قف كستو ميلو كدلية ماكي budget ماكي العقل لقى حلا ميلو قرش كيس أبدني هي ميلاس كسو تشيل سي كوم وراسمال كوه ديجاني سيد كوجو بالطو مركب method كان هو method عام أنا نفس أنتي وحن كبرتي تي هارب بوك عام أي جرو حواسنا إذا كوكسو قراي وحلقها The Secret of Millionaire Mind. The Secret of Millionaire Mind معناه ذو حال مركب ذاتك مليونير هذا أي تاجرين تأه مركب لعجوه أي كل قيبينيان سيدان أي وكل قيبيان مركب عادين يعني هدي أدنالوش هذا هرمر إلى خلايا هرمر يعرف إني سميان وإنا سانو كلت أو فكري كرتيد أد أكتهاي شيلينكو كسوغلا إي شيلينكي كبحاي ماشي إكو كلا بحين أد أكتهاي لعقت أد ليلك أو تلقشي إي لعقت أد راسمالك أو تلقشي إني كلا سوعنتها لعقت وحبرشد أو تلقشي إي لعقت أد أو تلقشي إن waxa oo daruuri ku ah inay kala soocan tahay yani marka saas kale oo kale og tahay way ku fududahay ina investment aad samaysid saadoti jaarkan kaleeto stock tasla kuma gadani kartid waa mamnuuc ya ijaarka ka dhiibada lacag inta ku jirto aad diibto si marka seesan iska kaadar soomin aadan lacag aadan awoodin aadan meel qaldan iskaga gelinin stress oosan kugu dhicin u baahan tahay ina kala qaybsid marka إن شاء الله ما أنت أي نقول ترى جلوا إنتان وين مهم تها إنا budget أنا فهمنا أنت أنا أوجد بين investment تيجا محايلة هدي أنا كم فهم سنين وحدي كرت لعقتي لو ترى جلي إن جارك أو جارك إيو necessity هاي إنا investment أو كوسمي سد لعقت مرك investment تيجا حاجة يريس مرك هاس ويرد هذا قلقلك وقول إنا للصبح أتسمينيسا وصبح سنيسا قصارت كل صباح هذه في السوق أصهوز جوجاد لا صباح هذه مركز ستاس اسم ودعين مركز تو إنا فينا جارك استعمالين جارك مستقبلك إنه جارك مستقبلك معنا حاول لعق آذ وبهنانين وغيران شنت سنة صوص عطو كافتون تيت يعني وبهناك تلعقت هذا اسكال واختيارته صباح سكرتها لكن بدن كذا وين أهاتا لعق كافتون وهدوت هدو سوق كور آذ يهدو هوس آذبو يعني جحنجح وين أوسن كوجلينين سايكولوجي كافتون كرت آذنين كرتي هادينا صباح صدر عقتها مباهن سوق دور وكرها آذ هدور بهوس آذ وسوكرة شركة داس قصار إيو ديف وحي قبطان على لقبة كلسوني داس أكو هينيسو لكن هذا جار قلدا هذا استعمال شيء هذا استعمال شيء كلسوني داس مقايو كرتي فقول الآن أكو دعي سامع أنت الآن باهي أكو دليس وين هالسو بحد مركب مثل كينا saas ayaan kugu soo gabagabay waa method caan oo sida hore idin kugu sheegay hadii aan horumar aragtidne waa inaad budget noloshaada u samaysid waxaan rajeynayaa inta badan idin kamid inay already sameeyaan marka hadii aad hore u samaysidne sii wad hadii aad hore u sameey jirin hadda bilow waan kugu dhiirigelinayaa 100% wixii aad kala kulantayna noo soo sheeg iyo hadii noloshaada si u bedeshay waad mahadsan tahay hadii aad ilaa intaan ila soo gaartay marka intaas ayaa idin kugu talagalay waad mahadsan tihiin hadii aad ka heshay contentigan like garee si aan u soo badiyo hadii oo aad su'aalo aad qabtaan hoos igu soo qora hadii aad su'aalo qabtaan hoos igu soo qora fadlan subscribe garee soddonkeena gaarsii hadii ayaan soo wadnaa marka aan 30k aan gaarno insha Allah waxaan idin ogeysiin doonaa dadka guuleysiyaashta 27 Ramadaanka marka soo dhawaada like garee subscribe garee saaxiibadana la share garee waa inoo videoga xiga ee ku saabsanaan doona mowduucyada aad soo dalbateen mahadsanid